بسم الله الرحمن الرحيم. وفتي وزيراء وشرح بنوضة يعني كتبني إن كان كتشونا حريرة مدرسة عشاء كتشوني حنوه ريو كلا وفتي كتشوني وجوستيا لبدي إرجي لوضع بيلها ولا لها ودقن حريرة وحيس الصورة مادين جل كيتش معها خميس الماتا نشوني تشعي كوري الصورة مادين فدقنا إلى سبتي إلى ماتا وانو رشيريني waxaanu xidhnay nabadii baa lagu dhaaray labada beeroodba ay labadaba ballan qaadeen in nabad lagu wada noolaado nabadnimada la xidho walaalo wixii dhibaato ee jiray iyo colaadaha la tuuro wixii nool loo taliyo taasaa go'aan lagu qaatay kadibna waxaanu gallay dil muddo dheer soo taxnaa ilaa 82kii inaanu hawshooda gallo waxaa jiray 11 nin يا جواد ديل فالوضع بيقولوا بحي وإلى اللي بيجي سديته كي صوت إحنا واحد نقطة مركز هدين نبدي الحري إن وحبك تجين يعني لما يسترنوا والدلال كأكل حكمنا كوب يتمنك ديل رجعها يا جواد ديل الدلال وهي يتمنك بوان كل حكمنا إلى عشرة إلى ما تحكم كسعودي ما أنت صور الماضي حكم كي وحي قرارها وحي مرخات لو هلي وحي دار اي واجبتي waa la kala xukumay labadii dhinacba si fiican baa wixii wax ka qiraal ka noqday ay u qaateen iyagoo ka wada raali ah oo mafsuuda iyo labadiiba ku qanceen iyagoo xiriyaashoodii wata go'aanka nabadeed iyo go'aanka loo kala qarqaaday dilalkii muddo dheer soo socday ilaa muddo imka laga joogo 30 sanadood soo taxnaa الحمد لله رب العالمين هلكا waxa lagu gaaray nabad marka wasiir waxa loo kala bayaamisaa 11 nin iyo gabadha ma guud ahaan baa mise waad kala sheegi kartaa labada dhinac waxay ahaayeen guud ahaan way ahaayeen waxa dacwadii la keenay 11 marka waxa isku wax qiraal noqday iyo wax qiraal noqon waayay yay ahaayeen waxay guudhaan wixii la xukumay ee marxaati loo doonay iyo maragfur anaga ay guurtidu waxaan tiradooda guud waxaan 12 ka qof yahay marka ma jiraan waxyaabo kale oo hanti ah oo labada beelood ka dhaxeeyo isku iyagana dacwada ku soo daray waxa kamid ah waxyaalaha beero oo iyadana la fiiday hawlaha wado wixii dhulaha iyo deegaanaha runtii ay guud waxba wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada ee Soomaaliland Maxamuud Axmed Garaad waxa uu ka mid ahaa 5 xubnood ee golaha wasiiradaha iyo xubnihii guurtida ee shaqadii xariirad muddada 8 maalmood ugu maqnay marka wasiirku waxa uu ka warramayaa bal sidii waxay uga soo hawl galeen ee ay shaqadaasi u soo afjareen bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaasha Soomaaliland dariska marka horeysa waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa runtii labadii jilib ee reer Dudub iyo reer Geedi waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinay guddigii guurtida si joogtay magaalada waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa gudoomiyihii guddiga wasaaradda Cabdi Daahir oo runtii hogaamin wanaagsan noo muujiyay iyo program aan ku sugnay nabadda waxaan taglay magaalada xariirad bishan 13keedii maantana waa 18 waxaan ku dhameynaa arintaas maalmaha kooban dil dhacay 1982 kii ugu dambeeyay oo dhacay 2013 dilalka dhacay oo muddada dheer soo jiitay runtii waxaan ku xalilnay muddo kooban oo qorshaysan oo mudaysan runtii oo markii hore waxaan sameynay in labada beelood aan ka dhaarinay 13 meela 14 meela iyo 14 12 waxay hayaan guddigii u xisaarnayd labada beelood min 12 baa 12 reer Duduba iyo 12 reer Geediya waxa markaan ku lodnay guddiga waxa ilaaliyaashii ah oo min 3 waxaan dhaarinay maalintii hore in ay arinta nabadgelyo daacad ka yihiin ma ku dhaarinay xubnaha aan soo sheegay maan labaadkii
waxaan u kala qaadnay xabaalqodkii waxaan ku xakunay qolo walba inay bixiso $1,000 $1,000 waa la keenay waxaa noo bilaabmay markaas waray dacwaddii oon bilownay oo qolo walba wixii ka dhintay iyo wixii ka dhawacaa laga soo bilaabo taariikhda ahaa aan sheegnay 1982 dilkii u dambeeyay ka dhacay xariirad 2019 arrintaasi arrin guul weyn u soo hitay shacbiga Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland ruuxantii ammaanteedana uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrintan noo xilsaaray ragga mudakarka ah arrintaa ku soo dhaweeyay muddada kooban aan soo sheegnay waxaan kaga nimid arrintii guurtidii sidii u kala qaadi lahaayeen magahoogii iyo xabaalqodkii wixii ay isku qirteen taa wixii tafaasiila waxaan ka bixi doonaa gudoomiyaha golaha wasiirada Cabdi Daahir iyo tafaasiil ka bixi doona waxaan si aad iyo aad aan u xusayaa runtii oo taariikhda aniga igu suntan oo markii uu horeysay aan ka qayb galo arrin dil ah oo ka garnoqo weena cuslayd runtii maalintii hore tagnay labada beelood saas kuma eegi karin sax isma weydiineen midna mid kale ma eegin waxaasana si wanaaga maalintii labaad suu keenay dhaartii dhacday la bixiyay kafankii la bixiyay in ay ka wada fariisinay oo ay wada hadleen oo si fiican u wada hadleen markii dambe arrintu waxay noqotay inay yiraahdaan wixii annaka noo dhiibteen inuu nagu xukuma mar labaad isku celin waxaan inuu soo wada hadla arrinta soo jafa wax go'aan noo keena wixii arrinta inkaan nii dhibanay sidaan u dhibeen nagu xukuma taasina go'aankaygu saakan dhiibnay saakan markay dhamaatay arrintaasi fatas iyo farxad يا مقالدي لصلح مري دوري سوون بابور يلا قاتي مقالو دم سو مري وحي دمرها يوحي عرورها يوحي مذكرها أردن سو دوين مشحرب يو راين ريبن خنمي وحنا رينتاس قول أن لفين رؤان قولت لا لمان مسو ين كجانه رؤانتي ينقول دميني إلهي مهد